inaad xaqa ka aamustamay inaan runta sheegtay ahayd anigu waan ogahay inaad weligaaba ku riyoon jirtay Arjun iyo Priya inay ishelaan oo iyagu ay kulmaan laakiin maanta ayaad wax walba gacantaadii ku baabiisay ifaansi maxaad saa u samaysay inantaydii maxaad u badbaadin weyday farxadda Priya iyo Arjun adigu waxay ahayd inaad naftaada u hurto farxadda Priya Soomaane maya ma dhici karto Brim waynaanu Amira Priya guursanin haddii uu guursado nolosheeda dhan ayuu baabiinaya wuu kharribayaa anigu ma ogolaanayo tan inay dhacdo sharaftayda iyo akhlaaqdaydan ku dhaartay iyo qasriga aan daacadda u ahay waxaan ballan ku qaadayaa inaan Arjun iyo Priya marunaan isu keenayo baalka xune Brimna aan banaanka u tuurayo wax kastoo dhacay kadib anigu waxaan oran karaa Arjun noloshaydu ka baxay dibna ugu soo noqon maayo laakiin wallahi xaaladdu ku sugan yahay waa mid murugo leh Arjun maxaad samaynaysaa adigu itus wajigaaga yaa inaad ooydo looma baahna adigu waad ogtahay inaanay dembi lahayn oo qofka dembigaas oo dhan ay tahay Soomaanta xuna uraysa iyada ayaa qorshahan ku degtay Soomaan ayaa waxaan oo dhan ku samaysay adiguna wanaag ogaataa sababta adigana jawaabta hay rumayso laakiin waxa soo dhan ka hor waxbaan doonayaa inaan ku raado adigu binaadam bamati waxa tahay qalbi xabxab rumaysa Arjun dadka wanaagsan oo dhan waa la dulmaa noloshana dhib badan ay ka mutaan laakiin maalin baa timaada waxa ku cadaado noloshana ay guul ka gaaraan iyagu saaxiib qof wanaagsan baa tahay wax kasta oo u dulqaadatay maskaxdaadu laakiin ugu dambeyn way digi doontaa oo Soomaanta ay kuwa fajida qudhigayba qaab ay maray fajiya oo maxay tahay sababta aniga fajida la igu dhigan ku sameeyay maxaan ka galabsaday ii sheeg qofka ka faa'iideeyay aniga faji ii dhigo mid kale maxay ka faa'iideen iyaga faa'iido ugu jirta